madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dalkiisa Iran saacada kadib markii mid kamid ah maraakiibta dagaalka ee waaweyn ee gantaalaha supersonic xambaarsan Kinshal uu gundada u soo dhigay bariga dhexe sida ay sheegayso markaasi dawladda dalkaasi warkaalada wararka ee aqalka rasmiga ee Kremlin-ka ka soo baxday ayaa lagu sheegay in Putin iyo Ibrahim Raisi ay ka wada xaajoodeen qadiyada isla markaana Putin uu ku tirtirsiiyay Iran in ay istajiso marakan isla markaana bariga dhexe aysan dagaal weynin aysan كبلابا لكن waxa hoosta laga xariiqay in ay dawladda dalka Russia ku qanacsan tahay xaq iyo xuquuqda ay u lahayd Iran inay ka jawaabto weerarkii bishan koodidii lagu soo qaaday warmurtiyeedka ayaa la yiri masiibada aadka u weyn ee gobolka ka soo jeejile waxay salka ku haysaa markii la diiday in xal kama damaysa loo helo qadiyada dadka reer Falastiin ee duraysan ayaa lagu yiri Vladimir Putin waxa uu rajeeyay gabi ahaanba dhinacyadu inay isku dejiyaan si xaaladda loo dejiyo isla markaana caqawaaqi xumo balaaran ay ka dhalan karto dagaalka hadirta soo socda Ibrahim Raisi ayaa markale sheegay in dawladdiisu ay degantahay isla markaana aysan dudsanayn laakiinse uu gabi ahaanba uusan yeeli doonin in wadankiisa uu dhibana u noqdo weerarada kooxda saanuniyada sidaa daraadeedna ay qaadi doonaan tallaabooyin hor leh Ayatollah Ali Khamenei ayaa dhanka kale waxaa la sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray iyadoo dhanka kalena wararku ay xaqiijinayaan in Putin uu la hadlay hogaamiyaasha ka mid ah kuwa Carabta gaar ahaan boqorka yar ee dalka boqortooyada Saudi Arabia sida dadban u leeyahay Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz kaasoo laga wada hadlay ayaa leeyahay muhiimadda ay leedahay in gobolka lagu soo celiyo qadiyada reer Falastiin ee maxmar noqoto dhinaca kale Ukraine oo iyaduna xaaladan ku salba baqsan isla markaana dhex oroday hogaamiyahooda yar ee baxsadka Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay in la sameeyo wuxuu ugu yeeray abaabulkii ugu weynaa ee dhalinyarada iyadoo markii ugu horeysay da'da dadka ciidanka lagu darayo hoos loogu soo dhigay lagu khasbayo ayaa la 25 waxa uu amar ku siiyay booliisku inay qafaaraan dadka sida ugu dhaqsaha badan ee militariga u galiyaan sidoo kalena waxa la amray baa dhammaan qsuliyadaha dalka Ukraine uu ku leeyahay dalka dibadiisa oo ay ku jiraan kuwa markaasi safaaradaha iyo qsuliyadaha in aysan sharciyaysiin una cusboonaysiin dadka aysan ugu qornayn dokumentigooda in ay military yihiin wuxuu ku tilmaamay in ay taasi kamid tahay in waddanka la doonayo in la abaabulo oo la difaaco tan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu diiday in uu saxeexo hadii la kala reebo dhaqaalaha loogu talagalay ayaa la yiri in la isku daray Israel iyo Ukraine madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa diiday arrinta isla markaana daadifeeyay kadib markii ay sheegeen xisbiga Congress-ka dalka Mareykanka in ay kala saafayaan gaar ahaan xubnaha jamhuuriga oo sheegeen in lacagta Israel lagu taageerayo gaar oo la soo haraya Congress-ka dalka Mareykanka ayaa sidoo kale qaban qaabinaya shirar degdeg ah inay qabtaan oo ay sheegeen inay cunaqabatayn ku saarayaan dalka Iran oo ay ugu hiilanayaan Israel dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in la saaro cunaqabatayno ballaaran qaybo badan oo kamid ah ayaa nidaamka difaaca ee Iran taasoo markii ugu horeysay uu sheegay Mareykanku inuusan iska aamusi karin iyadoo uu arko waxa ay sameysay Iran ayuu yiri war qoraal oo soo saaray shir jiraad oo qabtay John Kirby madaxa isgaarsiinta u qaabilsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay muhiimadda oo dhan hadirta ay tahay Iran in lagu xanuujiyo wuxuu ugu yeeray weerarka ay qaadeen Mareykanku markii hore sheegay arrinta inuu dhaxdhaxaad ka ahaanayo isla markaana qolo la safad doonaya hadda is haywaay waxa la sheegay in cadaadisku aad ugu sii batay uga imaanaya xubnaha markaasi oo u janjeera dhinaca saanuniyada kuwaas oo dalbanaya in aan Israel saasi laga tagin ee wuxuu loo qabto waxa ay sheegtay inaysan hal yaraatay dawladda Mareykanku balse aysan ka qayb qaadan doonin weerar celis ay Israel qaado balse ay sii noori doonaan dhinaca dhaqaale inay ciqaabaan ayaa la yiri dhinaca kalena khilaaf aad u xooggan ayaa ka taagan aqalka Congress-ka dalka Mareykanka oo afayeenkoodii qarka u saaran yahay in xilka laga qaado mooshin ka dhana ayay soo saareen qaar kamid ah xubnaha dhinaca midigta fog oo ay dul dhigayaan markaasi Mike Johnson ayaa ku eedeysan in uusan si adag uusan ula tacaamulaynin siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha ee madaxweynaha dalka Mareykanka oo ay doonayeen inuu aad u cadaadiyo tan waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee maxkamad faldambiyeeda la soo saaro taariikhda abid 46 madaxweyne ee dalka Mareykanka soo maray ayuu noqday kadib markii lagu eedeeyay lacagta hash money loo yaqaan ama lacagta markaasi sharci darrada ah ee uu isticmaalay isla markaana uu siiyay naag jirkeeda ka ganacsata iyo sidoo kale wax loogu yeeray in uu dhaqaalo aad u badan oo uu lahaa uu dabamarteeyay 34 dacwadood oo lagu soo oogay ayaa loo saaray markii dambe xeerbeegtiga ayaa Trump u sheegay in 15 kamid ah kiisaska la tuuray laakiinse waxa la aaminsan yahay in 19 kale ay noqon doonaan kuwo qiimo weyn ugu kaca maxkamad ayuu ka soo muuqday isla markaana sida dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Mareykanka ayaa loo akhriyay xuquuqda uu leeyahay kadibna waxa loo sheegay inuu isku diyaariyo wax loogu yeeray markaasi dacwadda inay gacanta ku dhigaan xubno markaasi codeyd doono xeerbeegti loo yaqaano kuwaas oo go'aan ka gaari doona ugu dambeynta dalka Mareykanka iyo siyaasaddiisu dhinaca kale ee qir iyo qir isku sitay isla markaana sii darsanta Trump ayaa ku tilmaamay eedeynta iyo maxkamadda la soo saaray xilligan inay tahay waqtigan doorashada lagu soo beegay daraadeed
faragelin doorashada lagu sameynayo taas oo uu ku tilmaamay in laga shalay doono si kastaba ha noqotee waxaa la aaminsan yahay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu tan ka faa'iideystay isagoo wuxuu sii wataa ololihiisa halka Trumpna uu ku mashquulsan yahay maxkamadda inuu isku difaaco Joe Biden ayaa jooga gobolka Pennsylvania halkaas oo ololihiisa dhinaca dhaqaalaha uu ka wado isagoo sheegay in nidaamka dhaqaalaha ee wadanka ku hagayo uusan ahayn mid dadka oo dhan ka wada farxi kara laakiin uu yahay mid dadka badankiisa muwaadiniinta Mareykanka iyo qoysaska shaqeeya u wanaagsan oo soo hadalka u dhigay tan ayaa imaanaysa iyadoo eedayn aad u xooggan ay ka timid xisbiga jamhuuriga dhawaan ay ku eedeeyeen Joe Biden in uu bartilmaameedsanayo dadka shaqeeya iyo ganacsiyada yaryar balse taas ayuu daadifayay isla markaana uu been ku tilmaamay wasida markaasi hadalka waagaanka gandooda oo dabashana qiimaha leh trabeelka wararka wacala dhinaca dunaasiyada Afrika ma qadnay hadeertana ayada oo wadankeena aad ogtiin inay joogaan ciidamo shisheeye oo aan baarlamaanka Soomaaliyeed uusan ansixinin golaha amaanka qaramada midoobay oo dawladii hore Soomaaliya xiligeedii ka eriyay wadankan inay iskaga baxaan ay ahayd markii ugu horeysay ayaa ninkii dhawaan joogay magaalada la yiraahdo ku sugnaa muqdisho xarunta dalkeena hooye ee hogaamiyaha howlgalka wadamada midowga Yurub bariga badda cas ayaa waxa uu markii guureysay soo saaray warmutiyeed ku saabsan sida ay xaalkoodu yahay kadib weerarka iyo weerarceliska ka soconaya halkaasi ayuu gantaalo ay soo dul mareen badda cas markaana ay isticmaashay kooxda Xuuthiyiinta iyo sidoo kale ilaalada kacaanka Iran xubno ka tirsan taliyaha ciidanka European Union Red Sea Operation ama loo yaqaano the naval mission ayaa waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba ilaa deerto maraakiibtooda ay khasaare ka soo gaareen weerarada jirsiyay isagoo sheegay in ay ilaa bishii February ay kor u qaadeen inay protect gareeyaan wuxuu ugu yeeray ama ay badbaadiyaan ayuu maraakiibta qulqulaya ee Iran kooxda علاقات كلا لي حوثيين أي وير ككوكعنية يسوي هذا يوج شيء أرمنال فيصلوس قربي بارسي إن أي سي ودي دونان أيوري وير هذا شيء شرائد أيو كقبتي مجال هذا حرمته أو هالقال كان الرئيسة ضل كجريك الكاسولوجات خالص كستمان كان كامر قات وحاول شيء إن سي ودي دونان هالقال هذا كو إلى لنا يبض استمان كان كوكرتشوكتين يعني يسوي أنت سكوتري إن أي دسيتو ولا صعنا ينقلق dalka Soomaaliya ayaa dhawaan waxa uu ka soo saaray qoraal yar kooban qadiyada ka taagan Israa'iil iyagoo si dhaxdhaxaad ugu baaqay Israa'iil iyo Iran inay isdajiyaan Soomaaliya ayaa labada dal ee Iran iyo Israa'iil midna cilaaqaad kala lahayn midna cilaaqaad diblomaasiyadeed lahayn sanadkii 2016 ayaa dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay taarabkii hore waxa wadanka uu ka saaray ama wadanka ay ka saareen markaasi safiirkii dalka Iran kadib markii lagu eedeeyay in ay dawladda Saudi Arabia ay soo amartay in laga saaro wadamo dhowr oo waagaasi Iran xiriirka u jiray ay Soomaaliya kamid noqotay isla markaana ma jirin in cidama cilaaqaad ay la samaysato watarbeelka wararka wacala dhinaca dunaasiyada washana qiimaha gaanka gaantida oo dhan waxaan idhaahaya xogay ugu dambeeyay wararka wacala dhinaca dunaasiyada dunida oo dhan qodobo iyo warar aan kala dhicin baa idin haray reer galbeedkii oo hadeerto qiray inay laba wajiilanimada lagu eedanayay runtahay ما مقاش قف كاسي isaga isku maqraati furay waa markii ugu horeysay taariikhda ay arintaasi dhacdo sidoo kalena sheegay sababta ay arintaasi sax ku tahay ayaan idin hayaa iyo ma qaba karaan reer galbeedkii ma la qadabaya karaan Israa'iil taasna waxay u egtahay mid aysan sameyn karin laakiinse Israa'iil waxay badan tahay in la yiraahdo hadaba dabar nafsak halka carabtu ka tiraahdo hadaba adigu isdabar inay taas u badan tahay soo eeg waxaana u eegyihiin dalabadan reer galbeed hadda ay tufeen tabarna aysan u hayn dhaqaale taagna aysan u hayn khubarada qaramada midoobay ayaa uga digay dalalka Israa'iil iyo Iran in ay laayaan dad yowga ay u kala dhashay wadamadooda isla markaana waxay ku tilmaameen in sharci darro tahay in wadamada kale uu iska weeraro iyagoo si dhexdhexaad arinta uga hadlay khubarada loo yaqaan khubarada dhinaca hawlgallada iyo sidoo kale diyaariye qorshayaasha dalalka ay isku gardareystaan ayaa sheegay inay dambiyo waaweyn ay dhinacyadu isdhaafsanayaan isla markaana aysan ku gamba karin sharciga argagixisada labada dal ayaa ku galba kale u aqoonsan yahay argagixiso sida raadeen maadaama qaramada midoobay labada dal midna aysan u aqoonsanayn argagixiso ciduna sharciga gacmaha kuma qaada karto ayaa lagu yiri xubnaha waxay ka digeen hadii aan la xakameynin dhinacyada inay si darsanso wadanka Masar ayaa la sheegay isagana inay ka taagan tahay buuq siyaasadeed oo aad u weyn iyadoo la sheegay in guuxa dadka iyo taageerada Iran loo hayo iyo sidoo kale dadka oo hadeerto door bidaya inay dawladdu ay qaado talaabooyin cadaadis xooggan ay dareemayso wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa la sheegay saacadii ugu dambeeyay uu sanasan Saamix Shukri ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigagiisa dalalka Israa'iil iyo Iran wuxuuna labada dalba ku cadaadiyay inay joojiyaan dagaalka hadii kalena uu noqon karo dagaalku mid gobolka oo dhan isqabsada Saamix Shukri ayaa markii dambe wuxuu la hadlay TV-ga CNN barnaamijka Becky Anderson wuxuuna u sheegay in mid ku taaga iyo sidoo kale wuxuu ugu yeeray qaniyada Kafajines ay isticmaalayaan ugu dambeynta ay keeni doonto dagaal aan idlaanin oo gobolka oo dhan ku reeba ayuu raad aad u fool isagoo hadlayay ayuu sheegay in uu la hadlay dhigiisa wadankaasi Amir Abdullahiyan iyo
iyo sidoo kale Mr. Israel Katz oo asaguna dhigiisa Israa'iil wuxuu sheegay in sidoo kale uu kala hadlay Israa'iil inay joojiso howlgalkeeda Rafah oo gorsii wareysay ay warbaahinta Mareykanku ay tabisay in la daahiyay waxaana uu dhanka kale u sheegay in dalkiisu uu ka warqabo in dhinacyadu wadan kale uu u diyaar garoobayo isla markaana uu markaasi ku sii socdo ayaa la yiri sida ay arrimuhu ay cadeynay dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda iyaduna ku tilmaantay in ay $1 bilyan oo lacag ay kaga baxday difaacii Israa'iil ee 5 saacadood ayadoo Israa'iil markaasi marka dameysa la sheegay in khasaare aad u weyn uu ka gaaray ayaa markii ugu horeysay waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka iyo taliska ciidanka waxa ay qirteen in ay iyagana lacag aad u weyn kaga khasaarowday gantaalaha trapeelka ay ku difaacayeen oo aad qaali u ahaa agabka raqiiska ah ee Iran ayaa booleysatay isla markaana u dabaaldegtay inay khasaare aad u weyn oo maaliyadeed ay geysatay dawladda Mareykanka waaxda US Navy loo yaqaano ayaa waxa ay warmutiyada soo saartay waxay yiraahdeen marka la eego rasaasta iyo agabka inuu isticmaalay difaaca kaasoo ahayd in 130 weerar aanu ka hortagnay waxaa naga baxay $1 bilyan oo dollarka Mareykanka halkii bilyan waa 1,000 markaasi milyan sidaas waxa sheegay xogayaha ku-xigeenka waaxda ciidanka badda dalka Mareykanka Carlos Del Toro oo ugu baaqay dhammaan xubnaha kale ee dawladda dalka Mareykanka ay ku jiraan shacdiyaashu inay lacag gaar ah hadeerto ugu talagalaan ciidanka badda cas iyo badda Mediterranean-ka joogay dalka Mareykanka oo ka baxsanaa doonta qoondadii lacagtii hore loo ansixiyay Del waxa uu sheegay in aqalka Congress-ka dalka Mareykanka laga rajeynayo inay ogolaadaan lacag trapeela oo loo ansixiyo maadaama Mareykanka agabka difaacu ay aad qaali u yihiin waxay sheegeen in ay lacagahan kale ay noqon karaan ay u baahan yihiin ilaa iyo $2 bilyan oo dheeraad ah oo mustaqbalka ay yiraahdeen lagu difaaco weerar kale oo ka imaan kara Iran iyo kooxaha kale waxayna sheegeen in lacagtaasi $1 bilyan ay baxday ay ugu talagaleen in ay ku qaboojiyaan ay yiraahdeen laabaha maamulka Israa'iil ee wajahaya yiraahdeen hardanka Israa'iil ayaa la sheegay in ay gabi ahaanba kaligeed aysan iska qaban karin gantaaladaasi ayadoo ay ka qayb galeen 4 dal oo ka caabiyay laakiin Mareykanka markii ugu horeysay uu qirto khasaare inta leeg oo maaliyadeed in muddo 5 saacadood gudahood ah uu gaaray dabashana qiimaha badan ee wararka wacala dhinaca dibadda Israa'iil wali waxay ku hanjabaysaa inay weerar aad u culus ay qaadi doonto waxay sheegeen in aysan wali ka samrin in ay istaafacaan iyagoo sheegay in jiritaankoodu ku xidhan yahay inay istaafacaan oo ay weerarka ka daba geeyaan ay yiraahdeen weerarkii ay soo qaaday Iran sidaasi waxay sheegeen in gabi ahaanba ay noqon doonto talaabooyinka wax ku oolka ah ay kaga jawaabayaan qadiyadaasi taliyaha ciidanka qalabka sida wadankaasi ayaa saas sheegay dawladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa beenisay markii ugu horeysay hadaba iyaduna ay ka qayb qaadatay weeraradii lagu qaaday Israa'iil lagu difaacay Israa'iil waxa saas lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudigu waxa uu beeninayaa warka ay qoreen warbaahinta Israa'iil ee ahaa in weeraradii droniska iyo kuwii kale gantaalaha ahaa ay ka qayb qaateen in ay daadiyaan kadib markii ay hawada wadamada bariga dhexe oo dhan ciyaaryaman noqdeen ayaa lagu yiri warka qoraalka ee la soo saaray ayaa leeyahay Sacuudigu lug kuma laha in dhammaan projectski lagu weerarayay ayaa la yiri dhamaanba iyo mashaariicdii hubka ahayd ay qayb ka noqdeen gabi ahaanba ma jirto wax rasmi ah oo aan warkaasi anagu aanu meelna ku niri ayaa lagu yiri warka qoraalka tan ayaa timidiyada sidoo kale dawladda Saudi Arabia wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu ka digay in dagaal ballaaran bariga dhexe ka dhici doono isagoo dhinac taagnaa dhigiisa wadankaasi la yiraahdo Pakistan oo shir jireed ku wada qabteen magaalada Islamabad uu sheegay Faisal bin Farhan in uu goorsi horeysay uu sheegay Emir Abdullahiyan iyo sidoo kale wasiirada kale ee gobolka oo dhan iyo kuwa ay khusayso qadiyadu in gobolka uu san qaadi karin dagaal aad u weyn hadartana la joogo waqti gacmaha la qaba lahaa dhinacyada in lana xakameelaha waxa uu ka digay in gobolka bariga dhexe uu hanta harubla ay ka dhacayso hadii uu dagaalku u baaho isla markaana qadiyadu ay sii foolxumaato tan ayaa imaanaysa iyadoo dhinacyadu midka kale uu ku eedeerayo in uu gacan qaadka hore u lahaa militariga wadankaasi Iran ayaa iyaguna war qoraal ay kordhaweyta soo saareen iyo madaxweynahooda laftiisa waxay intuba ku dhawaaqeen in Netanyahu uu la kulmi doono cawaaqib xumo aad u weyn hadii uu soo qaado iyadoo laga jawaabayay hadal ka yimid taliyaha ciidanka qalabka sida Hersi Halafi la yiraahday Israa'iil ayay Iran waxay sheegtay inaysan gabi ahaanba aysan yeeri doonin asmici doonin isla markaana aysan sinaba u aqbali doonin in ay weerar dame wadankeeda lagu soo qaado waxaan doonaynaa inaan niraahno mar kale gantaalihii Christmas Eliska droniski iyo dhammaan kuwii aan la dhacanay xarunta ciidanka cirka Nefatim waa diyaar goorsi horeysay ayuu sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil wali inay ka baaraandegayaan arrinta laakiin waxaa la sheegay inuu dadka aadka uga soo horjeeda uu ka mid yahay qadiyadaasi waa saddex hadalka loo dhigay haddaba aan isweydiino Israa'iil maxay sameyn kartaa hadday weerar qaado 3 arrimood ayay Israa'iil mid sameynaysaa hadday weerar qaato iyadoo wali aan la hubin inay Israa'iil weerarkaas ay qaadi doonto Israa'iil waxay sameyn doon kartaa oo arrinta ugu weyn ay sameyn kartaa xoogay duqeyn dhinaca cirka duqeynta dhinaca cirka Israa'iil ay sameyn karto aad bay u xadidnaa doontaa
haddii ay noqoto gudaha Iran hadday noqoto way waxaana laga baqayaa haddii laakiin gudaha Iran ay ku noqoto in dagaal weyn uu noqdo aad baan qarka ugu saaran yahay waxaana la hubaa haddii gudaha Iran ay weerar ku qaado oo dhul Iran oo duqeyso Iran jawaab ka bixinaysa jawaabtaasna waxay ku xigi doontaa dagaal waxa loo yaqaan full scale war buu noqon karaa laakiin se arinta kale ee isla weerarka intayna ka bixin cirka ee Israel qaadi karto Israel waxay sameyn kartaa waxa loo yaqaan the cover preemptive strike coverka marka lagu daro ereygan dagaalka Sanjabiska weerarka Sanjabiska waxa weeye waa mid aan ka dhicin wadanka gudihiisa laakiin danaha Iran maadaama meel walba quban yihiin waxay ku qaadi kartaa meel kale tusaalahan Suuriya meel kale ku qaadi kartaa meel xarun ay leeyihiin Yaman meelaha maartay wadamada fragile-ka ah ee awoodda faraha badan aan lahayn ayay ku qaadi kartaa taana way sameyn kartaa Lebanon oo kale saas oo kale talabaad ay qaadi karto waxa weeye Israel waa weer dhinaca cyber attack waxa loo yaqaan dhinaca internetka ayay qaadi kartaa kaabayaasha wadankaas ayayna naafee kartaa sida markaasi la aaminsan yahay waxa kale oo Israel u furan oo iska baday kartaa waxa soo dhan inay qaado talaabooyin dhinaca diblomaasiyadda iyo kuwa dhinaca markaasi sirdoonka ah saanahan taam waxa kamid ah Iran waxa ay wadamada reer galbeedka kaga bedeli kartaa in ay tiraahdo okay ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran argixisana la geliya cunaqabataynta Iran ku noojiya wadamo badan oo markaasi European ay yeelaan bay badanta maadaama arrintaasi ay markaasi mar walba ay u dabacsan yihiin dhinaca Iran taas hadaba haddii halka kaga baxno Portugal wadanka la yiraahdo ayaa dagaalka ku soo biiray Portugal waxa ay Iran ugu digeen in ay gabi ahaanba aysan haysan karin Iran isla markaana aysan sii haysan karin markab ku duulayay ama ku mushaaxayay calankooda waxayna sheegeen in ay sidoo kale cambaareenayaan weerarka Iran ay gudaha Israel ku qaaday waxa la sheegay in taas ay dhacday kadib markii safaaradda wadankaasi uu ku leeyahay magaalada Lisbon safiirkooda Lisbon jooga dabcan waa safiirka Iran ee Lisbon jooga magaalada caasimadda waa dalka Portugal oo handadaad iyo hanjabad aad u kulul u kala yimid Portugal saaxada dhinaca dagaalada may soo gali jirin laakiin waxa la sheegay in arrintan u soo gashay in markabka la yiraahdo MSC Ares ay ayadu maadaama calankeeda ku mushaaxayay isla markaana uu ka diiwaan gashay wadankeeda ay ka dhigan tahay inay taa ka cadhaysan tahay 13 bisha ayay Iran qofalatay Iran marka qofalatayna waxay ugu tala gashay in gabi ahaanba ay ku biirto hanaanka cunaqabataynta lagu saarayo Israel ee gobolka turbeelka wararka waa calaamad dhinaca dibadda dabashana qiimaha leh gaanka dunida oo dhan ee Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xaaladda bariga dhexe ka taagan iyo colaadaha horaya oo dhan hal nin kaliya mas'uulka ah ninka kaliya mas'uulka ka ayuu sheegay inuu yahay ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Netanyahu wuxuu yiri Israel waxay isku dayaysaa in gabi ahaanba gobolka oo dhan dagaal geliso waxa markii ay weerarka ku qaaday ayuu safaaradda Dimashq waxay ahayd ayuu isku daygii ugu dambeeyay qariska tuurnimo isagoo markaasi shirka golaha wasiirada ka hadlayay ayuu sheegay wuxuu ku tilmaamay inay tani tahay waxa keenay ayuu yiri inay ku hoos qariso dambiyadeeda bahalnimada ay xasuuq iyo gumaadka ay wali ka sii wada qasa waxa uu sheegay in dhinacyada oo dhan ay la yimaadaan xigmad guud isla markaana dalalka reer galbeedku ay cambaare lahaayeen ayuu weerarkii ka dhanka ahaa xarunta diblomaasiyadda ee Iran ee leedahay hadii ay taasi dhici lahaydna waxa uu sheegay in xaaladdu hadda aysan ka duwanahay tusaalahan arrintaas waa sax moogta wuxuu leeyahay hadii Iran la oran lahaa waa laga gardaray oo markii hore la ladqabay lahaa oo la cambaarey lahaa markii weerarka diblomaasiyadeed ay ku qaaday xarunta diblomaasiyadda Israel taasi waxay noqon lahayd ayuu ka wadaa in ay gabi ahaanba ay ahaa lahayd mid markaasi Iran laga qabto oo la yiraahdo Iran ay marka adiguna wax maqal waa lagu hiiliyay raali ahaw marka asaas kale dhaqaaleed kadibna Israel lagu cambaarey la cadaadis la saari lahaa Iran marka way qabsoobi lahayd bulay laakiin adab wuxuu leeyahay Iran sabab loogu arinta loogu tanaado maaha hadii gobolka oo dhan dagaal is qabsadana iyaga kaliya ka mas'uuliyay shirkadda loo yaqaano EasyJet ee dalkaasi Britain oo ah shirkadaha qiimaha yar lagu raaco kolka la kareysanayo diyaaradaha ugu qiimaha jaban ee dunida ay ku jirta ayaa ku dhawaaqday inay joojisay gabi ahaanba ilaa iyo bisha October dabayaaqada sanadkan inta laga gaarayo duulimaadada ay ku tagaysay Israel kadib markay sheegteen xaaladda Israel aan isku halay doonin sanadkan oo dhan waxay sheegtay in iyadoo weerar celis laga baqayo inay joojiyeen duulimaadadoodii Tel Aviv war qoraal ay soo saartay shirkaddu waxay sheegtay in xilliyadan oo aad loogu baahnaa gaar ahaan uu soo dhaweeyay xilliga fasaxa xagaaga ayay ku dartay intaasi inay joojisay qorshayaashaas oo dhan isla markaana ay meesha ka saartay waxay ugu yeedhay duulimaadadii ay ku tagi jirtay maalinlaha magaalada Tel Aviv xarunta wadanka Israel tan ayaa imaanaysa iyadoo la sheegay in aan la hubin sida ay noqon doonto
doonto ama ku dambeyn doonto hawada dalkaas Israa'iil diyaarado badan ayaa weli ilaa iyo hadda ka gabangaabsanaya isla markaana ka meermeeraya qadiyada haddaba ayadoo dalalka reer galbeedku ay gabi ahaanba marka dambaysa muujinayaan sida ay ugu kala aragti duwan yihiin sida loo wajahayo arrintaas una burburay qorshihii isku xidhnaa ee markaasi lagu gardaadinayay laguna baritaaraya Israa'iil una u eegay hadeerto inuu wadamo mar siibanayo ayaa ninka arrimaha dibadda ugu sarreeya midowga Yurub oo dhan wuxuu markii ugu horeysay ku tiraabay in sidan ay wax u socdaan cidna eega karin waraysi kale oo siiyay wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska luqadda Faransiiska ku hadla ayuu wuxuu ka digay in gabi ahaanba aan iska bixin karin waxa uu ugu yeeray sheegashada Iran ee ahayd in ay weerarka ay qaadeen oo ahaa weerar cayiman sanjabis ah isla markaana taxadirkiisa lahaa waxa uu sheegay inay Iran gabi ahaanba ay sameysay shuruucda caalamiga ah marka loo eego ay ku dhaqantay mid kamid ah qaraarada ah in ay wax iska waabiso ayna gabi ahaanba yaraysay khasaaraha gaari karaya shacabka wuxuu waan qirayaa Iran in ay sameysay weerar oo gudaha Israa'iil taariikhda markii ugu horeysay wadan weeraro ay noqotay taa aysan la oran karin ayuu yiri boqolkiiba ku khaldan yihiin wuxuu sheegay inay goobo military ay bartilmaameedsatay in damage dhinaca dhaqaalaha ay u geysatay laakiinse wuxuu yiri haday doonayaan inay u geystaan damage weyn oo dhinaca nafta ah ma aysan soo direen daroono qaarkood in badan soo soconayaan waxaad ogtihiin agabka kale iyo hubka kale ayay badi lahaayeen oo halka ay ka soo direen ayuu 300 oo drones 300 oo gantaalaha ballistic missiles ka haday si roobka ugu soo daadi lahaayeen Israa'iil maanta halkaas may fadhideen ee dhul badan ayaa gubalaha burbur aad weyn ugu dhici lahaa sidaa daraadeed waxa uu sheegay inay ugu tala gashay naafayn dhinaca dhaqaalaha iyo nidaamka difaaca taa Iran way ku guuleysatay laakiin Israa'iil waxay ku guuleysatay inay intii badneed gantaalihi iyo droneski burburiso oo soo daadiso wuxuu sheegay dhinacyadu hadarta inay kala joogaan sidaa daraadeedna Israa'iil ay gacan qaadka koobaad markii hore balahayd waxaase uu markii ugu horeysay ka digay in hadeertada aan hadlana buuli Iran iyo Hezbollah ay weerar maaha oo hadeer weerar kale ma soo aha dagaal la diyaar hadeerto uma aha hadan la soo weerin laakiin hadii la soo weeraro waxa dhacaya og ayuu nin sheegi kara sida ay u foolxumaa karto qadiyada bariga dhexe ma jira ayuu Joseph Borrell ayaa markii ugu horeysay waxa uu sheegay in ay gabi ahaan Mareykanku u baahan yihiin markan in aqligooda isticmaalaan wuxuu yiri Mareykanku waxay isticmaali karaan ayuu yiri saameyntooda ay ku leeyihiin waxayna gabi ahaan joojin karaan hubka Israa'iil siinayaan ayuu hadalka ku dhiiray wuxuu yiri waa inay arrintan hadda ka hor marbay joojiyeen buuri qadiyadan oo kale ay dhacday si ku meel gaar waxaan u maleynayaa maanta waa muhiim waxaan u maleynayaa ayuu yiri inay isticmaalaan saameyntooda oo ay arrintan sida ugu dhaqsaha badan ugu ciqaabaan Israa'iil oo Israa'iil degdegteeda la xakameeyo oo la qabto oo laga qabto ayuu yiri in aysan dagaal aysan ku waari karin ay markaas gasho haddaba maxay hadalkan ninkan ka wadaa waxa weeye Israa'iil hadeerto dagaal Iran la gasho Iran Israa'iil iskama celi karto sida daraadeed cidda dagaalka lagu wadaa waa reer galbeedku marka way og yihiin ultimately ayaga iyo Iran ba dagaalami doona waayo Iraniyiintu way ka awood badan yihiin Israa'iil taas waa la hubaa boqolkiiba laba cali oo isku diidan ma jiro xataa waxa la leeyahay haday xitaa nuclear ku dhuftaan xataa nuclear haday ridaan حتى نقول يدريدان إيران أو دن نقول يركلا يمايو موقتي هل مهلهم بيكونوا فنايا وحالة بقى يا حتى إن نقول يركا إسرائيل وكشوا وايو حالة حلا يا بالليل هي إسرائيل وحي أول أولى هاي إن أي صدق كن أو جنتال يصدق كن أو ديارها درونسكا هل مرسوي يردو انتبه marka la qaban karaa intiba Iron Dome iska qaban karaa 6 kun oo wax loo yaqaan objects markay soo rido 6 kun oo wal xood markay soo rido Iran hal mar markay soo wada rido imsa la qaban karaa yani waad garanaysaa waa cayimanta kun ka soo qaad in la qabto 2 kun ka soo qaad 3 kun ka soo qaad xitaa in la qabto moogtay 3 kun oo Iron Dome isma haysato Israa'iil xitaa ilaa xabad kasto Iron Dome ah waxa la rabaa in xabad qabato waxaan ay qabanayaan Iron Dome kuna waa qaali marka arrintu ka hadlay waa taa arrinta kale marka xiisaha leh ee Joseph Borrell ka hadlay baa la yaab leh hadaba waxaanu ka hadlanay ayuu qara wuxuu yiri markaynu Ukraine ka hadlanay ee aanu nidib wiri Ukraine in korontada laga gooyo oo laga duqeeyo korontada baadka iyo biyahana laga jaro waxaanu nidhi waa dambi ka dhana sharciga caalamiga isla markaana waxaanu ku qeexnay taasi waayahay markii dadka reer Falastiin qasa ku dhaqan buuri korontadii iyo biyihii iyo cuntadii laga jaray waa in ay la mid noqotaa buuri hadii kale wixiina lagu sheegay cadaaday buuri oo waa maxay laba wajiilanimo munaafaqada Joseph Borrell waa ninka ugu sareeyay midowga Yurub wana madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub waa ninka Isbaanishka ee Isbaaniya wadanka Isbaaniya ka soo jeeda waa ninka Muqdisho tagay ee soo saxeexay xashiiq hoosta ay ka wada saxeexdeen aan idin sheegi jiray heshiiskii ciidamada badda ee Soomaaliya ee Yurub ee jooga lagu sii haynayay weeyaan ninkaas waa ninka caanka maal walba ka warrano wuxuu ku celceliyay markaas in gabi ahaanba
isa sii joogtay anigu mar walba waxaan ahay buu yidhi nin matale ayuu yidhi warkiisa caddaysta oo aan qalexleexan buu yidhi korontada jartay biyaha jartay qasaad joogtaa sharciga caalamigana kumaad xadgudbin inana maynaa dhihin Israa'iil sharciga caalamiga ku xadgudubtay wala wajiilnimo buu yidhi marka soo koobo tani wuxuu yidhi gabi ahaanba cidu uma baahna ayuu yidhi inay sii wado dhinaca kale wuxuu ka hadlay markii ugu horeysay dagaalka Russia wuxuu sheegay Ruushku gabi ahaanba wuxuu yidhi hadeertu uma baahna dagaalka inay sii wadaan umana baahna ayuu dagaalka inay ku guuleystaan intii ay khasaare geysan karayeen ayagana loo geysan karayay way geysteen hadeertu waxa weeye ayuu yidhi waxa kale ee Ukraine aysan ku guuleysan karin waxa weeye Ruushka inay ka adkaa karto laakiin Ruushka way iska caabi kartaa wuxuuna sheegay taasi uu hadii la sii wado taageerada iyo dhaqaalaha Ukraine la siinayo taa un baa lagu sii wadi karaa buu way celi kartaa buu ka wada darbeelka wararka oo calaamad dhinaca dawladda dabashan qiimaha waa gaanka gaantanida oo dhan hadaba aynu fiirino ayadana wararka kale ee dawladda iyo warbixinaha dhinaca caalamka ee waaweyn ka imaanaya waxaa kamid ah isla markaana Iraq ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in ay Mareykanku qarka u saarayeen inay ka iibiyaan diyaarado kuwa qumaatiga u kaca sidaas waxaa lagu sheegay markaasi war qoraal ah oo ka soo baxay waaxda Pentagon wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka maxoogaha gaashaandhigga Lloyd Austin iyo Mohammed Shia Sudani ra'iisul wasaaraha waddanka Iraq ayaa waxay ku heshiyeen in qaar kamid ah diyaaradaha gaar ahaan C-172 iyo taloo yaqaano markaasi RC-208 ay ka gadi doonaan dawladda dalka Mareykanka Iraq ay ka gadi doonto ayadoo labada cilaaqaadkooda uu xumaa bariyay ugu dambeeyay dhan Iraqna ay ku nuxnuxsanaysay in Mareykanku ciidankiisa kala baxo waddanka Iraq iyo tani dhanka kale waxay imaanaysaa iyadoo Iraq oo ay taageerayaasha Iran ku badan yihiin sidoo kalena aad loogu hayo taageero dadka reer Falastiin ay wadamada reer galbeedka siinayaan waddanka Denmark ayaa ku dhawaaqay inay safaaradoodii kula hayeen magaalada Baghdad ee xarunta Iraq albaabada isugu dhufteen ka hor markii goorsii horeysay ciidankoodii ay kala baxeen waddanka Iraq war qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Denmark oo iyadu kamid ah wadamada dabagalka waa Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in ay gabi ahaanba ciidankoodii majority halkaas ay ka qaateen isla markaana safaaradii albaabada la isugu dhuftay iyagoo sheegay in ay tan u suubinayaan sidii ay markaas u yareeyay lahaayeen ayaa la yiri kan shaqasta oo looga heli karo halkaasi howlgalka loo yaqaan NATO Mission Iraq oo loo yaqaan NMI baa loo yaqaanay howlgalka NATO ee Iraq oo loola jeedo kaas ayaa waxay sheegeen inay gabi ahaanba ay safaaradoodii ay xidheen siday wararku xaqiijinayaan haatan dawladda dalka Iraq ayaa waxay doonaysaa in dalalka reer galbeedka ee horay ee u dhaxmartay xurguftu gaar ahaan lagu eedeynayo inay qayb ka ahaayeen burburkii weynaa ee dalka Iraq gaaray inay waddankaas kaga baxaan isla markaana ay ka noqdaan ayaa la yiri dalka ay ciidamadooda kala baxaan laakiinse inay safaaradaha la xiro waa mid kale oo muujinaysa ayaa la yiri dhinacyadu meesha ay kala gaareen ee aad iyo aadka u xun oo dadka qaarkood ay haatan cadeynayaan inay sii socon karto kala qaybsanaanta markii uu joogay Mohammed Shia Sudani dalka la yiraahdo Mareykanka waxaa la sheegay dhinacyadu inay ka wada hadleen isla markaana ay qadiyadkooda ay isla meel dhigeen dhowr arrimood oo ay kamid tahay baa leeyahay in ay dawladda Mareykanku ay ka baaran degto sidii ay u diyaarin lahayd in ciidankeeda la baxdo inay dawladda Mareykanku ay xoojiso agabka military ee ka gadasho dalka Iraq laba iyo sidoo kale in dawladda Mareykanku ay yareyso saameynta xooggan ee ay ku leedahay dhibaataynta dadka reer Falastiin oo inta bala sheegay laga wada hadlay iyo in bariga dhexe nabad lagu soo dabaalo si warka loo argay tabeelka warka waxaa la dhinaca darasada washana qiimaha badan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran ayaa ku celiyay in waddankiisu uu bixi doono jawaab ka ballaaran tan isla markaana ay noqon doonto dhagay faray haddii ay Israa'iil dagaal dama soo qaato isaga oo la hadlayay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka reer galbeedka isla markaana wasiirada degniinihii ugu dambeeyay ayuu u sheegay David Cameron wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Britain in Amir Abdullahi Yan fariinta uu wadaa aysan hayn mid kaliya ka socota wuxuu yiri aniga kaliya igama socoto fariintani ee waa mid qaranka waddankayga iyo wadaadada oo dhan ay go'aan ku gaareen haddii Iran la kulanto weerar damo oo Israa'iil ka dhana waxaanu jidsamay doonaa jawaab Anthony bixin waxay noqon doontaa mid degdeg ah ciyow ah ballaaran isla markaana wuxuu yiri dhul gariir oo gaagma reebta isagoo hadlay ayuu sheegay in ay aysan ka gaban gaabsanayn gool sii horeysay ayuu sheegay in dalkiisa oo dhan loo geliyay heegan dhanka kalena Iran ayaa ku dhawaaqday in haddii weerar lagu soo qaado meesha la isku dilaya iyo goobta la isku arkaya aysan hayn hal ciid oo kamid ah waddankooda balse ay tahay gudaha magaalada Tel Aviv iyadoo oo la sameeyay markii ugu horeysay hashtag-ga ciidanka oo markii ugu horeysay lagu tilmaamay in la ciqaabo waxa loogu yeeray soo duulayaasha iyo nidaamka gurracan oo afka luqadda markaasi Persianka lagu qaybiyay ayaa sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanku waxay sameeyeen hadal kale oo ku dhig ah oo ah in kooxda argagixisada ee markaasi Israa'iil lagaga hortagi doono halka Israa'iil dhankeeda iyaduna ay goorsii horeysay ay sameysay hashtag ay doonayso in ciidamada ilaalada kacaanka ee IRGC lagu daro liiska argagixisada si kastaba noqotay iyagoo hadlayay mid kamid ah xubnaha sarsare ee waddanka Iran ayaa waxa uu sheegay inay dalbanayaan
in wadanka la ogeysiiyo haddii dagaal uu dhaco inay isku diyaariyaan qaranka iyo ciidankuba inay gudaha u galaan Tel Aviv. wuxuu yiri goobta la isku diri doona waxay noqon doonaan gudaha magaalada Tel Aviv ee ma noqon doonto ayuu yiri goob kale sidaas ayay sheegeen. kubanaan kun oo qof oo markaasi isugu jira taageerayaasha ciidanka qalabka sida iyo dadkii hore iyagu oo aad uga soo horjeeday dawladda laakiin gudaha Iran ku sugnaa ayaa ka jawaabaya iyadoo kooxo lagu tilmaamay inay yihiin caloosho shaqaystayaal oo Iiraaniyiin oo reer galbeedka dalalkooda ku dhaqan kuwaas oo bilaalimii ugu dambeeyay oo dhan olole ka dhana dawladooda waday ayaa waxa isku soo baxa magaalooyinka weyn ee dalka Iran ay dadku ku tiraabiyeen in ciidanka wadanka ilaalada kacaanka ay garab taagan yihiin dadkoodu isla markaana loo bedelo goob dhigmayd ah haddii dagaal uu dhaco gudaha Israa'iil. talaabada xigta waxay noqon doontaa in la isku dilo ay yiraahdeen ma noqon doonto haba yaraatee meesha la isku dili doono la isku dagaali doono Tehran ama meel kale. hogaamiyaha dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay ku niyad jabay elite ee kaliya bacsada ayuu haweenka iyo dumarka guri loogu weerari doono wadankooda hadii ay isoo tagaan isagoo hadlayay ayuu wuxuu yiri gabi ahaanba waxa noqon doonaa inayna dhihin war meesha la isku dili doono Tehran ma aha. Ayatollah Ali Khamenei wuxuu yiri meesha doqod doonta battleground-ka ama goobta la isku haleelo la isku xanuujinaya waa magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil ayuu ka digay. Tarbeelka wararka oo cala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan waa ka gaan caalamka oo dhan qodobada wararka oo cala dhinaca diblomaasiyadda dhinaca kale Israa'iil ayaa sheegtay kuna tooqday inay dishay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka ee kooxda Hezbollah. waxay sheegeen in way weerar ay qaadeen shalay goor gaaban inay ku dileen Ismaaciil Yusuf Baas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ka mid ah ciidamada dhinaca howlgalka cirka u qaabilsan aaga ay yiraahdeen Aynul Baad ee dhinaca koonfurta Lubnaan halkaas oo uu ahaa taliyaasha hagaaggan taalaha qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa sarkaal rugcada ah oo ah sarkaal sare oo qaabilsan gantaalaha gaar ahaan kuwa ay yiraahdeen cirka iyo kuwa kale ee ka hortagga intay loo yaqaano tank missiles ama kuwa taangiyada burburiya oo ay ku tilmaantay Israa'iil in ay gaaday si kastaba noqotay Israa'iil oo diyaaradaha drones-ka ay wax gaadaan ayaa dhan kale waxay sheegeen inay sii wadi doonto arrintaasi. Urdun ayaa waxay ku dhawaaqday in aysan noqon doonin goob dagaal wadankeedana aysan ka dhigi doonin boqorka dalkaasi oo aad baraha bulshada loogu cambaareeyay isla markaana dadka carbeed ay aad uga hor yimaadeen kadib markii ay qiratay Urdun inay ku lug lahayd weerar celis lagu difaaciyay Israa'iil balse iyagu ay ku micneeyeen in hawada wadankooda ay ku daafacaan ayuu boqorka dalkaasi Urdun King Abdullah waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba wadankoodii aysan doonaynin inay noqoto meel la isku dagaalo. wuxuu sheegay in aysan ogolaa doonin in gobonimada wadankooda lagu xadgudbo cid kasta oo gobonimada wadankeeda ku xadgudbaysa kama rabno ayuu yiri abaal ay waxaan doonaynaa inaan gobo runa u sheegno isagoo ka hadlayay shir ka dhacay deegaanka Mafraq ee dhinaca waqooyi caasimadda Amman ayaa waxa uu sheegay in Urdun aysan noqon doonin goob dagaal ama masrax dagaalka oo weyn wuxuuna tilmaamay in isaga mas'uuliyadda saaran ay tahay badqabka dadkiisa hase yeeshee dad badan ayaa waxay u soo qoreen oo ku dhajiyeen naanaysta boqorka Israa'iil waxaana la arkayay iyadoo calanka Israa'iil inta lagu dhajiyay la wareegayo baraha bulshada aadna ninkaasi sabcadiisa ayaa u dhimatay saacadihii ugu dambeeyay. dhinaca kale saraakiil sarsare oo ka tirsan wadanka Iran oo la hadlay wakaalada wararka Mehra ayaa sheegay in saraakiisha amniga qaranka ee wadanka ugu dambeyntii ay war kama dameysa ay siiyeen waxa Urdun laga yeelayo isla markaana ay gacanta u geliyeen golaha Islamic Shura Council-ka loo yaqaan ee wadanka Urdun ayaa sheegay in goorsii horeysay dhigooda wadanka Iran ay warqad kama dameysa u direen una sheegeen in ay ayaga iyo Israa'iil isku kiis noqonayaan hadda iyo wixii ka dambeeya haddaysan arrintaasi aysan sheegin. tan ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kalena Israa'iil ay sii wado inay durreyso dadka reer Falastiin. qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa in sida ugu dhaqsaha badan xaaladda bini'aadanimo wax looga qabto. Rafina Shamsusani afayeenka waaxda u qaabilsan qaramada midoobay hay'adda qaxoontiga UN High Commissioner for Human Rights and qaybta xuquuqul insaanka ayaa waxa uu sheegay in xaaladda waqooyiga iyo waliba bartamaha magaalada Gaza ay sii darsanayso xilli ay Israa'iil ay sheegtay inay dhisayso waxay ugu yeedhay ilaa iyo 10,000 oo markaasi teendo oo ay sheegtay inay ugu tala gashan tahay dadka ku go'doonsan ayay tir Rafah si ay weerar ugu qaadaan halkaas inay u soo guuraan taasoo ay sheegtay inay wali ka baarantagayso weerarkaas inkastoo Israa'iil ay sheegtay in weerarkii dib u dhigtay. si kastaba ha noqotay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale isku qurinta dhinacyada iyo wadamada ay u muuqato mid marka dambaysa sii darsanaysa. tan ayaa dhanka kale waxay ku soo beegantay iyadoo oo qalalaasi aad u weyn oo ballaaran uu ka dhacayo dhinaca daanta galbeed iyo dhulka kale ay Israa'iil ku gadaaman tahay maamulka Maxamuud Cabbaas oo ka taliyo dhul boobkii ugu ballaarna ayaa halkaas ka socda. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo sida ugu dhaqsaha badan dhul boobka bahalnimada ah ee kooxaha Mooryaanta loo yaqaan ee dhulka jecelo ay ku boobaan dhulka reer Falastiin
Falastiin isla markaana ay dhul hor leh ay ku qabsadaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta qaramada midoobay ayaa sheegay inay Israel iska sii indhatirayso tallaabooyinka ay tahay inay ka qaado dadka dhul boobka wada taasoo lagu tilmaamay inay noqonayso iyada masiibo aad u weyn dhinaca kale waxaa la sheegay in Israel ay sii wado qabqabashada dadka iyo inay jirdil aad u baahsan ay ku sameynayso maxaabiista ay gacanta ku dhigtay reer Falastiin waxaana ay qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaanku ay sheegeen inay taasi cadeynayso marba sida markaasi ay u dhici doonto wararka kale ee ka fargareed doona dabashana qiimaha leh waxaa kamid ah in 8 qof oo dada lagu dilay magaalada Qasa iyo gaar ahaan agagaarka iyo sidoo kale iyadoo warar tarbeel ay noo soo socdaan oo ay kamid tahay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabia oo iyadana gudkeeda biyo ugu soo galeen Masar oo xaaladeedu ay xun tahay